أنا وحن قرأ قراءة دتكي ولالك يدري إني قصقصو أنا أركيه دي وحن وضعنا ما جرته واسكال عق مال الدنيا مرة ونفت ولالك وانواي نكي نفتي سؤال قوي إني يدلو أيام قناع سنة هذه دولة عدالة إجته وقان عد أو ملك قرتي أبها دلي wiilka qisadiisa jacayl ay haraysay warbaahinta iyo baraha bulshada Soomaalida laakiin sheekada ka duwan ayaa ka dhacaysa meel aan sida uga fogeyn guriga ay tacsidu ka jirto barnaamijkan arooska ama lamaanahan Ruqayya Maxamed inaanu ku koobno oo aanan gudagelin inaha taadiyada dhacay oo dalxay sheekhu sidoo sheegay halkan koobno aan ka hadlo qoyskaas anu inta ayaa jeclaan siyaasiyiin iyo dad bulshada magac ku dhax leh ayaa qaatay go'aan ah in aroos qaran loo sameeyo Maxamed iyo Ruqayya haddaba sidee loo arkaa in dhalinyaro reerkooda tacsi ay ku jirto aroos loo sameeyo in dareenkii Soomaalida oo dhan ay muujisay la dhaawacayo ay dhaawacayaanna dad ay caadifo maaragtay runtii hogaaminayso runtii adiga waxa sameey lahayn anigana aan sameey lahayn in dad aad la doonato sax ma aha adigoo gurigaaga tacsi taalo ama dhib yaalo qoyskaaga qaar ka mid ah inay dhigtaan xaflad ay dhahan xafladan tagayna ma ka yeelaysid oo waxyaabaha reeraha isku qiimeeyaan waaye oo waxyaabo mararka qaarkood xiriirka reeraha lagu jaro waaye in dareenkii la wadaagi waayo yani arintaasi runtii arin aan ka xumaha waaye arin ano yani cabirayo dareenka bulshada waxay soo dhaweynaysa ma aha iyadoo dhib yaalo wax yaalaan tacsi taalo in ma saas ay dhacdo sax ma aha Soomaalidu meel kasta oo ay joogto waxa ay midnimo ka muujiyeen eeba naxariistii janno ha siiye dilkii Axmed Dawlo waa laga dhiidiyay waana la garab istaagay ehelkii uu ka geeriyooday Axmed Dawlo iyadoo madaxda talada haya loogu baaqay inay tallaabo ka qaadaan kuwii gaboodfalkaas geystay qodobka labaad qadiyada iyada ah dad baa dana kale kaga faa'iideysanay waa in laga digtoonaada dadka dhalinyarada ah oo laga yaabo sheekooyin inay dhex maraan oo waalidkood laga yaabo asbaabo jirin iskugu diidaan oo asbaabo sax noqon karaan inay qadiyadaas looga faa'iideysto in wax kasta la yiraahdo suuqa madow baa lagu dhameynaya in la yiraahdo oo hay'ado iyo inta la boombooniyo la wixii la isku diidaaba ha yimaadeen waa la maal gelinayaa waa la isku aroosinayaa oo arrinkaasi uu abuuro fitno iyo dhibaato qoysaska hooyooyinka iyo aabbayaalka iyo ilmahooda dhexdooda ay ka timaado